oo booqashadiisan ku yimid magaalada Sanca ee xarunta wadanka Yemen fiidnimadii xalay ayaa waxaa garoonka Sanca ku soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta Yemen Xasan Al-Luusi diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee Sanca oo ugu horeeyo danjire Maxamed Xasan Dawaare iyo gudoomiyaha jamciyadda walaaltinimada Yemen iyo Soomaaliya Cabdalla Al-Girbi kadib sheeko gaaban oo ay labada wasiir isku weydaarsadeen qolka ragga muhiimka ah ee gegida diyaaradaha magaalada Sanca iyo wasiirka warfaafinta dawladda ku meel gaarka federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ka warbixiyay booqashada ay Yemen ku yimaadeen waxa ay ku salaysan tahay iyo guud ahaan xiriirka ka dhaxeeya labada dal Yemen iyo Soomaaliya booqashada dalka Yemen aan ku nimid ugu horreyn waxay ku salaysan tahay walaalkeena wasiirka warfaafinta dalka Yemen ayaa martiqaad noo fidiyay martiqaadka ayaan ku nimid halkaan muddo ka hor ayaa dawladda Yemen ugu martiqaad in halkaan nimaado dalka Yemen iyo Soomaaliya oo ogsoontihiin oo badda wax ka yar baa noo dhaxay xiriirkeena xataa badda uma dhaxayso laakiin deegaankeena badda u dhaxaysa badda yar qooriga yarka baa noo dhaxay xiriirkaas caadiga aan ahayn labada dawladood ay leeyihiin labada madaxweyne ay leeyihiin labada shacab ay leeyihiin taariikhiga ah iyadoo laga duulay ayaa ziyaaradani ku nimid dalkan dawladda Yemen iyo wasiirka warfaafinta Yemen ay noo soo jeediyeen ugu martiqaad dalkooda warbaahinta dalka Soomaaliya wad la socotaan xilliyo kala gedisan ay soo martay maanta ay warbaahinta gaarka ah waxay maraysaa dhibaatadii ugu weyneed culayskii ugu weynaa in la xirxiro la joojiyo wariyaasha laga dilo la dhibaateeyo midda dawladana waxay maraysaa soo baraarugii ugu balaarnaa waxaan xaqiijinay oo noo suura galay guulo warfaafineed oo wax ku ool ah oo aanan uga jeedin xagga warfaafinta iyo qalabka iyo kaadirka aan isu keenay iyo barnaamijta intaba laakiin aan kaga jeedo xataa raadka ay ku yeelatay isbedelka ay ka abuurtay dalka Soomaaliya ama muuqaalka dalka Soomaaliya iyo mucaaradada iyo waxa ay tahay iyo dawladda Soomaaliya himiladeeda iyo aqaltaageeda iyo wax aqaltaagiso khibradda aan xagga ka kasbanay iyo culaysyada nahayo iyo wax qabadka aan damacsanahay intaba walaalaheena waa la sheer gareyn doonaa ama waa la wadaagi doonaa iyagana waxaan ka dhageysan doonaa talooyinka ay noo soo jeediyaan alimaan Yemen oo xikma Yemaniya xikma fara badan baa lagu yaqaanaa nabiga u qiray inaan ka dhageysanaan doonaynaa dabcan laba wasiir aan nahay oo warfaafinta kaliya ma noqon doonto laakiin qadiyadihii kale dalka Soomaaliya ku aadan iyagana waxaan iska dhigi doonaa wasiirka ayaa loo dhaqaajiyay dhinaca hotelka la dejiyay iyadoo uu kulamo kala gooni ah saacadaha iyo maalmaha soo socda la yeelan doono madaxda dalka Yemen oo ugu horeeyo dhigiisa Xasan Al-Luusi oo si qoto dheer uga hadli doono horumarinta warbaahinta dalka gaar ahaan midda dawladda nuxurka booqashada wasiirka Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay ka faa'iideysiga khibradda iyo waayo-aragnimada dhinaca saxaafadda ah ee dawladda Yemen iyadoo la filayo in Yemenna ay taageero ka geysato wixii arrintaasi ku tacalluqa guddoonka baarlamaanka ku meel gaarka